الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. marka koowaad waxaan u hambalyeeynaa madaxweynaha la doortay waxaan ugu ducaynaynaa xilkaasi weyn ee loo doortay inuu hogaamiyo qaranka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. waxaan leenahay Ilaahay xilka ku fuudeeyo mudane madaxweyne 5 sano 3 bilood iyo 7 maalmood kadib oo halkan xilka ku wareejisay maanta waxa halkan lagu dhaarinayaa dadka dalka iyo diinta islaamka iyo dastuurka Soomaaliyeed. waxaanu bilaabi doonaa insha Allah taala dhaarta uu jiyeeyay qodobka 96 ee dastuurka ku meel gaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. kitaabka gacanta saar midig saartina waa bilaabaynaa insha Allah taala wadiga daboodan. waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u gudanayo waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u gudanayo inaan dalkayga xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diinta ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala wabillahi tawfiiq. Allah wiilahowta ma dhammaanin waxaan u yeeraynaa madaxweynaha hore musharaxa ugu dambeeyay ee la tartamayay madaxweynaha si ama kalimaad asagana uu meesha ugu jeediyo madaxweyne maxamed Abdullaahi madaxweynaha hore labadii xagga tagaysiin madaxweynaha la doortay madaxweynaha xagga wada tagaysiin kalimadaas jeedinaya asagana madaxweyne بسم الله الرحمن الرحيم. إله الله ما هتسره وعاو هكذا نوصل جبجبيين ورسلي عن ذلك أن صور لي الحمد لله وعن رباعين المهدئليو بدون كلمة أقل كنت دور شويك اللي بعنا الشرف له كلمة أقل كوي دورتي كوي قطي سيئي يكوان السيمبا واجنا سنتي ولا ليال waxaan halkan ku soo gabagaboobay doorashadii soo socotay muddo aawa waxaan rabaa halkan inaan ku soo dhaweeyo walaalkay madaxweynaha cusub xasan sheekh oo aan leeyahay hambalyo ilaahay waxaan uga baryaynaa in hawshaan dhibka badan uu ilaahay u sahlo hawl aad iyo aad u adag weeye wax sahlan maaha kulligeen aan ilaahay u barino inuu hawshaan u fududeeyo annagana waxaan u muujinaynaa kulligeenba solidarity wada shaqayn soo dhaweyn madaxweyne soo dhawow ilaahay hawshaan dhibka badan allah ku sahlo بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maantana waa maalin kale oo ka mid ah maalmihii taariikhda ay samaysay dalkeena Soomaaliya. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya iyo guddoonkiisa sidoo kale madaxweynaha maxamed Abdullaahi Farmaajo halkaan ugu soo dhaweeyay asagana waa u mahadcelinayaa. waxaan u mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble iyo guddigiisii doorashada ee soo daadiyay doorashadan muddadii dheeray sidoo kale dhammaan
madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ee deegaanadii ay madaxda ka ahaayeen ayaguna ka soo dhaqan geliyay doorashadan oo baarlamaankan sharafta badan ee muuqaalka qurxoon ee maanta nala jooga ay ka yimaadeen dadka Soomaaliyeed dhammaan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin intii sabab u noqotay in maanta meesha la soo gaaro dhammaantiin waa mahadsantihiin madaxweynuhuna waa ku mahadsan yahay in asla maanta halkan uu garab taagan yahay sidii aan marar badan oo hore ku celiyay dalkeenu wuxuu u baahan yahay inaan hore u soconno inaan dib u noqono uma baahna gocasho uma baahna tabiya uma baahna waxaan u baahanahay wixii jira ee tabasho ah musawa kasta la ekaadeene inaan daaweyno sidii aan maalmada weynto markii aan iclaaminayay murashaxnimadeyda habeenkooda aan ka dhawaajiyay iskaarsi ma jiro isdabagal maxaan ku yiraahdaa ku salaysan siyaasad ma jiro dalkaani qawaaniin ku filan oo leeyahay haddii wax isbedela iyo wax lagu kala duwan yahay ay yimaadaan qawaaniinta ayaan la tiigsan doonaa ilaahay idankiis ee qof walba sida la quman ma yeelin dadka Soomaaliyeed dhibaatooyinkii muddada dheer soo gaaray ilaa iyo maanta la joogo wixii ka horreeyay oo dhan waxaan leeyahay walaalayaal xanuunka murugada xusuusta leh lama iloobi karo laakiin waa la cafin karaa ee aan iscafino qalbigeena aan hagaajino aan ka fikirno berri yaanan ku mashquulin shalay iyo wixii soo dhacay haddii aan la yidhaah waxaan ka shaqayn doonaa biri qurxoon mustaqbal qurxoon dal iyo dad qiimo iyo sharaf ku leh adduunka waxaan dhaqan gelin doonaa halhaysigii ahay Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la haddii aan la yidhaah ubadana ma istaagin maantana caawadeedii maaha waa isla hadlid iyo qudbooyin waa noo dhiman yihiin mar kale aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa baarlamaanka waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa walaalkay garab taagan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah madaxweynihii iga horreeyay aan xilka halkan kula wareejiyay inuu maanta igu wareejiyay sharaf anigana ii tahay asna waa u tahay dalcan dadka Soomaaliyeedna waa u tahay muuqaalkooda iyo karaamadooda qurxoon aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh xildhibaanada fadhiiseen madaxda baxaysa madaxweynaha cusub iyo madaxweynihii hore ayagaa horumaraya ayaan la jiirin tartiibkii deganaanshaan la muujiyo marka ayaga baxan kadib iyo tartiib u baxaysan xildhibaanada sharafta leh aad u mahadsan